asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacna daawadayaal soo dhowaada waa mar kale iyo walaalkiin aadan karaama halka aad iga daawanaysaan waa bartan youtube-ka ku leeyahay aadan karaama haddii ay tahay markii ugu horreysay aadna soo booqato fadlan sabskreibta inoo taabo islamarkaana riixka bareelka casi ay kuu soo gaarhaan muuqaalada iyo dhacdooyinka kala duwan ee xiisaha leh aan halkan kusoo gudbinno haddii aad horey noola joogtay 1,000 jeer ayaad mahadsan tahay fadlan muuqaalka leeg kusii qaba si ay uusii gaadho markaasi bulsho tiro badan waxaan halkan idinku hayaa runtii muuqaal anigii qalbiga xanuunjiyey caloosha ii huriyey aad iyo aad u xanuun kulul waa hooyo soomaaliyeed oo wiilkeeda loo haysto markaasi 24,500 oo doolarka maraykanka ah iyadoona iskuma furata 1 yuuro ama $1 ama 1 shilin waa hooyo xaasa islamarkaana qofka la haystaa waa curadkeedii waxaana garaacaya oo madaxa kaga istaagay oo gowda ku haya magafaha liibiya halkaas ayuu ku xayiran yahay waxaana har iyo habeen laga soo wacayaa waddanka liibiya iyadoo loo sheegayo in wiilkeeda markaasi la gowracayo haddii ay dhaqsi usoo bixin weyda lacagtaasi hooyadan oo markaasi warbaahinta hortimi ayaa ummadda soomaaliyeed ku hor oyday islamarkaana haddii aad aragta muuqaalkani waxa uu noqonayaa mid markaasi qalbigaaga ku xanuujin doona oo saameyn weyn kugu reebi doona muuqaalkani runtii uma baahnaa faahfaahin badan inaan ka bixiyo balse waxaan doonayaa in aan halkan idinku soo gudbiyo oo aynu wada daawanno kadibna aynu isku soo noqonno baa la yidhaahdaa gabadh ilmaheedii ka maqan yahay baan ahay oo magafa haysto iska tabaalaysan cid iyo ciirsi ay u tagto aan haysan waxaan ku yidhi waxaa layga doonayaa 24,500 oo dollar baa layga doonayaa waxaana la yidhi waa la dilayaa haddii aanad soo dirin lacagtaa haddaanad lacagtaa soo dirin waa la dilayaa meelan marana ma hayo waxaan doonayaa muslimka ilaahay in ilaahay ii sakhiro oo wixii muslinay soo caawiyaan baan doonayaa wixii muslinay soo caawiyaan waan hooyo tabaalaysan hooyo waxaan ku yidhi wax kala daayo oo intii ku qallashay oon oohiniba ka soo dhacayn baan oo ilaahay igu ogiye oohiniba ka soo dhacayn oo tabaalaysan oo cid iyo ciirsiba u weyday ayaan ahay cid iyo ciirsiba u weyday baan ahay oo ummadda islaamka ayaan doonayaa inay soo caawiso ilmahayga waa la dilay magafaa haysta waxaan ku yidhi meel walba waa la jebi kuma noolaa waxba kuna iga qabta waxba kuma noola waxaan doonayaa in laysoo caawiyo oo dal iyo dabadba layga soo caawiyo oo habeen iyo maalin waan ooyaa oo intii way igu qallasho habeen iyo maalin waan ooyaa habeen iyo maalin waan ooyaa waan oohin dhamaystay oo cid iyo ciirsiba waan waayey ilmahana waxaan doonayaa in laysoo caawiyo wixii muslin inay soo caawiyaan baan doonayaa wuxuu muslin soo caawiyaan baan doonayaa ilaaha raxmaanka inuu ummadda ii diro oo ilmaha yaree jajabay ee eedaaday ee 3 jeer la dilay ee ciidan u waayey ciirsi u waayey ee qof 100 shilin isiinin ayaan doonayaa ummaddaas Soomaaliya ilaahay dartii inay iga naxdo oo waxay soo tarto ilaahay dartii wax ka weyni ma jiraan in ilaahay dartii iga naxda baan rabaa ilaahay dartii ummadda ilaahay sakhiro ummadda ilaahay sakhiro oo hin ma hayo ilaahay bay arkaya way igu qallashay habeen iyo maalin waan ooyaa habeen iyo maalin maskaxda iyo qalbigeen iyo daba waan ka ooyaa de waxaan doonayaa ummadda in la ii sakhiro igu gudhay oo intu waa naxariista markaad naxariista haysataa baad ooydaa marka waa isha kalgacal 24 saacadood wuu ii soo hanjabaa 24 saacadood wuu ii hanjabaa 24 saacadood shaashadaan soo dhigaya dilmadiisii waa shaashada la soo dhigay waxaan ku yidhi maydkiisa ayaan shaashada soo dhigayaa buu yidhi maydkiisa ayaan shaashada soo dhigayaa wixii muslini inay ii gargaaraan waxay siiyaan waxay taraan ayaan doonayaa ummaddu inay wax tartaa baan doonayaa oo intuu waa isha kalgacal habeen iyo maalin gurigaan ka hoosooyaa habeen iyo maalin waan hadlayaa cid walba waanu tegay nin waliba aanay taydii cuslaysay buu yidhi nin waliba aanay taydii cuslaysay 10 baa reer walba ka tegay waxaan ku yidhi 24 saacadood way ooyin 24 saacadood way ooyin 24 saacadood waa ooyin
يوي ويا أنا فريلاتن كساعدود ومدى إلهي وعرض كيجي وحن كوري مدى إلهي وحن كبر يا وحن كوري إسلام كإلهي الله يسخره وحن واسخرك وحن واسخرك إنه إلهي يسخر من دونه ومدى مسلم كميلة شوك تبع إن ربي قويني يسخره أين دونه سخرك عيار معها إنه مدى الله يسخر من دونه وحن كوري اللي يسوع عاويه وقف لي بهال دولار روح كلا دايو هال دولار أنت وغير يسوتره أين دونه waxba kuma doonayo dhuumasho waxba ku dooni maayo turufo waxba ku dooni maayo waxba ku dooni maayo siyaasad ilaahay dartii baan wax ku doonaya ilaaha raxmaanka baan wax ku doonaya ilaahay dartii ayaan wax ku doonaya ilaahay dartii baan wax ku doonaya Soomaali meel joogtaba ay soo caawiso Soomaaliya wixii muslimi dal iyo dabadba wixii Allah ii dira uunba wax siinaya dabcan sidaad wada arkayseenba waa muuqaalka caloosha ku horinaya oo hooyada Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee curadkeedii la haysto isla markaana aan haynin $1 oo ay ku soo furato waxay afka u furatay oo markaasi ay fariin u soo dirsatay bulshada Soomaaliyeed iyadoo aan dhinacna magaranaysaayay loo eegaynin dhinac siyaasadeed dhinac deegaan dhinac dad dhinac qabiil Soomaalida wax kasta baabiyay laakiin hal mid way ka midaysan yihiin oo ku fiican yihiin waa marka sidan oo kale qof dhibaataysan uu ku soo cabaado si wacan bay wax ugu qabtaan waxbay u ururiyaan maxaan kuu sheegayay ilaahay baa dhibaatada faydee maxay isku dayaan intii karaankooda ah inay dhibaatadaasi qofka la qaybsadaan oo wixii ay tari karaan ay taraan muuqaalkan waxaan rabaa inaad asxaabtaada usii gudbiso isla markaana aad u gudbiso bulshada kale ee Soomaaliyeed haddii aad hooyadan wax tari karto fadlan wixii aad tari kartaba tar $1 ilaahay ka dhigo u dir haddii aadan awoodin soo maaha iyo haddii aad awoodaba muuqaalkan like u saar u sii share garee si uu u gaadho bulsho fara badan oo Soomaaliyeed oo laga yaabo qaarkood inay ladan yihiin oo ay wax weyn ka tari karaan dhibaatada hooyadan Soomaaliyeed intaas ayaan idinka codsanayaa oo walaalkiin aadan karaama tan iyo muuqaalkan mid lamid intaan ku kulmayno waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe inoo saartaan isla markaana muuqaalka aad share sii dhahdaan oo like sii saartaan oo aad meel fog sii gaadhsiisaan haddii aad horey noola joogtay aad iyo aad baad mahadsan tahay haddaad inagu cusub tahayna waxaan leeyahay soo dhowaada subscribe inoo saara isla markaana riixa gambaraalka cas si aad u noqoto qofka ugu horreeyay ay soo gaadhaan muuqaalada xiisaha leh ee kala duwan ee kusoo gudbino tan iyo muuqaalka mid lamid intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu